ciidamo taabacsan hogaankii hore ee Ahlusunna wal Jameeca ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan waxa ay ka wadaan xalay ilaa saakay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. ciidamada ayaa la arkayay iyagoo gaaf wareegaya xaafadaha iyo duleedka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. dad ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa keenan u sheegay in ciidamadaasi ay yihiin kuwa daacad u ah hogaankii hore ee ururka Ahlusunna wal Jameeca oo in ka badan 10 sano ka arriminayay magaalada Dhuusamareeb iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa bishii dhaaftay ee July waxa ay shaaca ka qaaday in la qarameeyay ciidamadii Ahlusunna ee gacanta ku hayay ammaanka magaalooyin ay ugu waaweyn yihiin Gurceel iyo Dhuusamareeb. intaas kadibna waxay Ahlusunna iyo dowladduba si wadajir ah u sheegeen in ammaanka magaalada caasimadda u ah maamulka dhismihiisa lagu howlan yahay ee Galmudug ay la wareegtay dowladda dhexe. ciidamada sugayana ay si toos ah uga amar qaadan doonaan dowladda federaalka. maalintii Isniinta ee ku beegnayd 5tii bishan warqad ka soo baxday xafiiska madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo asagu ka mid ah hogaamiyaashii Ahlusunna ayaa lagu muujiyay cabasho ay ka qabaan heshiiskii ay la gashay Ahlusunna dowladda federaalka Soomaaliya. warqadaasi ka soo baxday xafiiska madaxa xukuumadda Galmudug ayaa si cad loogu sheegay in dowladda dhexe ay qaaday tallaabooyin aan ahayn kuwii ay ku heshiiyeen iyagoo ku goodiyeen haddii aan jawaab degdeg ah la siin ay qaadi doonaan tallaabooyinka dhan ah howlaha ay xukuumaddu ka wado deegaanada Galmudug. dadka reer Dhuusamareeb ayaa ku macneeyay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee xalay ilaa saakay ka socda magaalada Dhuusamareeb inay daba joogaan warqadii ka soo baxday xafiiska Sheekh Shaakir 5tii bishan.